siyaasadda dadka haddaan laga heshiinin way adag tahay howl kale oo kastoo maamul in la qabto. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu ku dhashay degmada buuloburde ee gobolka hiiraan dabayaaqadii lixdamaadkii isla buuloburde ayuu kaga baxay dugsiga hoose dhexe iyo sare ka hor inta aanu ku biirin jaamacadda caalamiga ee afrika ee waddanka suudaan halkaas oo uu ku qaatay shahaadada sharciga national university of malaysia ayuu sidoo kale ka dhammaystay shahaadada labaad ee jaamacadda oo uu ka diyaariyey low comparative federalism wuxuu koorsooyin la xidhiidha qorshaynta hoggaanka maamulka xallinta khilaafaadka dhismaha nabadda iyo xidhiirka istiraatiijiyaadka uu ku sameeyey macadka hoggaanka iyo maamulka ee london ka hor inta aanu siyaasadda ku biirin cabdiraxmaan waxa uu madax ka noqday hay-atul culya oo uu kaga shaqeeyey arrimaha samafalka isagoo intaa kadibna u dhaqaaqay arrimaha siyaasadda waxa uuna ka mid ahaa asaasayaashii somali concern group iyo somali diaspora conference waxa uu madax ka soo noqday xarunta saddexaad ee islaamiga ah ee ugu weyn dalka ingiriiska ee north london islamic center waxa uu soo ahaa tiftiraha mareegta goobjoog iyo majalladda hiiraal isagoo 10kii sano ee la soo dhaafay xubin joogto ah ka ahaa xarunta daraasaadka xiriirka dawliga ah ee chatham house waxyaabaha taariikhda galay ee cabdiraxmaan lagu xusuusto waxaa ka mid ah gacantii uu ka geystay shirkii dib u heshiisiinta ee dawladdii kumeel gaarka ahayd iyo isbahaysiga dib u xoraynta soomaaliya ee ka dhacay dalka jabuuti sannaddii 2009kii isagoo madax u ahaa wafdigii isbahaysiga wadahadallada u qaabilsanaa halkaas oo lagu dhisay dawlad midnimo qaran kunka tallaabo waxaa la yidhahdaa waxay ka bilaabataa midda ugu horraysa waxaan rajaynayaa tii ugu horraysa jidkeedii inaan saarannahay kunkana aan ku tegi doono dadka soomaaliyeed aad ayay u daaleen aad ayay u dhibtoodeen gaar ahaan 2 sano ugu dambaysay intaan ka badan dhib ma qaadi karaan marka waxaan rajaynaynaa taas inay keeni doonto in ummadda soomaaliyeed ay gacmaha isqabsato dal madax bannaan iyo dad walaalo ah iyo dal midan aan heli doono hadduu ilaah yidhaahdo baarlamaanka soomaaliya ayuu xubin ka noqday isla sannaddaas waxaa dawladdii la dhisay uu ka noqday wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah intii uu xilkaasi hayey ayuu gacan weyn ku lahaa guulo diblomaasiyadeed oo soomaaliya u soo hoyday isagoo markii ugu horraysay muddo 20 sana ah shir guddoomiye ka noqday shirkii wasiirrada arrimaha dibadda jaamacadda carabta ee ka dhacay dalka masar cabdiraxmaan waxa uu madax u noqday guddi jaamacadda carabta ay u saartay xallinta khilaaf ka dhex jiray waddamada suuriya iyo ciraaq isagoo hoggaamiyey in khilaafka si degdeg ah loo xalliyo وبهذه المناسبة الفريدة التي يترأس فيها الصومال مجلس الجامعة نقدم شكرا العميق لجمهورية مصر العربية الشقيقة تنعقد هذه الدورة والعالم العربي يواجه بصفة عامة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية جمة markii la dhisay dawladda federaalka ee Soomaaliya sanadii 2012 waxa uu la taliye u noqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana loo xil saaray shirkii London isagoo sidoo kale gacan ku lahaa wadahadalladii dawladda federaalka ee Jubbaland intaas kadib waxa uu la taliye sare oo arrimaha siyaasadda ah u noqday ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa iyo midka hadda u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Nicholas Kay iyo Michael Keaton halkaas oo uu ergeyga kala shaqeeyay dhismaha dawlad goboleedyada iyo federaaleynta dib u eegista dastuurka diyaarinta hannaanka doorashooyinka iyo dejinta siyaasadaha amniga qaranka kadib wada tashiyo dheer oo uu qayb ka ahaa cabdiraxmaan kana dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa lagu dhisay xisbiga wadajir iyadoo ugu dambayntiina uu xisbigu go'aansaday in cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu noqdo musharaxa xisbiga ee doorashada madaxtinimada Soomaaliya 2016 cabdiraxmaan cabdishakuur waa siyaasi aqoon waya aragnimo iyo sooyaal siyaasadeed oo soo jireena leh waa xog ogaal xaaladihii siyaasadeed ee uu dalku soo maray waa geesi karti iyo dulqaad badan waa siyaasi dhextaal u ah jilalka siyaasadeed ee Soomaaliya ku hardamaya waa siyaasi galaangal u leh xoogagga siyaasadeed ee kala aragtida duwan ee ka jira waddanka Soomaaliya